Barakacayaashii ku jiray dugsiga hoose dhexe ee Barwaaqo ee duleedka magaalada Mandera ayaa lagu soo waramayaa in si rasmi ah loo raray maadaama maanta oo Isniin ah dib loo furayo qaar ka mid ah iskoolada dalka. Barakacayaashan ayaa hore uga soo qaxay dagaaladii ka socday beled Xawo ee u dhaxeeyay dowladda federaalka iyo maamulka Jubbaland. Waa kan gudoomiyaha xaafadda Barwaaqo ama chiefka xaafadda Barwaaqo Chief Cumar oo ka waramaya xaaladihii ugu dambeeyay. laakiin hay'adan waxaan leenahay hawaarta ha socoto waa u duceeyna hay'ada najra ay noo keentay raashinka maantana waxa waaye la siiya waa guurayaan iskuulaadka la furaya iskuulka dal la furo waxa waaye ilmaha iskuul akhriistaan la rabaa dadka marka maanta raashinka marka la siiya haddaba waa baxan hadda xaalkan oo maanta qudmo tahay meesha lagu soo gaaray hadda dhaqaajinayna insha Allah hay'adana ma hadan u celinayna. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.